ninkii wadanku iska barwaaqo ahaayo baahi badani ma haynina sidoo iskaga joogay ayay sanad abaarihi ku dhacdo islaantiisii baa la talisoo tiri ma horta isnoo ninkii maad u tagtid Nucmaan waa kii ku ballan qaaday barigiye maad inoogu tagtid alla ilaahay buu yiri wuxuu ku hagaagay nasiibka maalintii murugada ayuu ku hagaagayo ninkii koobaad ee Nucmaan uu arko wuxuu noqday ayo ninkii acraabiga ahaa ee abaalka ku lahaa uu u ballan qaaday inuu sharfinayo ayuu noqday qabtoo dilay buu yiri inankayga qaabusadu maanta iga soo horbaxo waa maalintii la dili jiray warmaadani garanayn buu ninkii waxaan ahaa acraabiga ahaa ee soo martiday ee sidaa ku galay ma yaqabtoo dilay buu yiri maanta kale warwar ma jiree intaydan dilinna boqol halaad siiye buu yiri horta bal abaal buu igu lahaa carruurta uga tagay boqol halaad oo carruurta uga tago markaasuu waaba ka dhimanayaaye maxay tiri buu yiri boqol halaad carruurta uga tagaysaa wiriyada lagu dayn maaye carruurta uga tagaysaa raggii meesha joogay ayuu sidaa u eegay oo wuxuu yaa idamaanad qaada si aan reerkii ula soo dardaarmo yaa idamaanad qaada gabay buu tiri nin quraad la oran jiro meesha ka ag dhawaa iyo rag baa ayaa kala boob adu nin baa markii dambe ayaa yiri ana ninka daminka abuu yiri inuu soo noqonayo hadda waa lagu dili buu yiri boqorkii haduu ninka soo noqon waayo ana diyaaru abuu yiri kala duu nin qariiba aha oo acraabiya oo miyi ka yimid oo boqor adigu wax ku soo mooday oo waliba aad u ballan qaaday oo hadana maalin adigu aad garanayso ku soo hagaagay aniga daminka ah halaysiyo buu yiri imisa lagu siyaasanad buu yiri maalinteeda waayo leeyo boqolkii halaad buu ka haystay reerkiisii buu ku soo baxay isagoo boqol halaad wada xaafadii ba farxad bay kala bateen markuu gurigii soo galay buu laakiin boqolka halaad aan keenay waa la dilayaa oo noqonaya boqorkii bay dilayaan reerkii ba dib u murugooday dib markay u murugoodeen boqorkii ninkan isaga saaxiibkiya ee ninka damaanad qaaday ayuu doonayaa inuu dilo acraabigeena abaal buu ku lahaayo inuu badbaado sanadkii oo dhammaan ayuu boqorkii iskugu yeeray xawaashidiisii soo qabta buu yiri acraabigii waa la waayay ninkan muddo u harsan baa lagu yiri boqor maxaa ku helay ninkan muddo u harsan markay laba maalmood ka dhinayd ayuu hadana boqorkii iskugu yeeray arqabta buu yiri xidhxidha u baxsan karaa xidhxidha buu yiri ninkii waa la xidhxidhay waan dilaynaa buu meey baa la yiri wali laba maalmood baa u dhiman maalin markay u dhinayd ayuu boqorku soo diyaar garoobay hadilin baa la maalintii u dambeysay markii uu ku jiray ayuu galinkii hore soo diyaar garoobay u kaadi baa la maanta ha dhameystay maanta ugu dambeysay cadceedu markay sii dhacayso ee ninkiina dili diyaar loogu yahay oo islaantiisi ay ka dul barooranayso oo gabay ka dul tirinaysa baroor ah ayuu halkaa ka soo baxay meel fognin markaas ay ku yiraahdeen hadda seeftii wala dul hayaa ilaa intaynu ninka cadceed waa liiqa ninkaasi intuu inaga soo gaaray lama dili karin waa intuu isaga noqday isagii buu noqday acraabigii markaas uu boqorkii xanaaq naftu ka baxday maxaa ku keenay buu wabad naga baxsatay diintayda ayaa martay buu inaan ballanta oofiyo diintayda ayaa amraysa inaan ballanta oofiyo qoladan kula ballamay waan ku imaadaa diintiisii buu u bandhigayba markii isaga halkii lagu xulay diintii u bandhigay ee kii la sii daayay ayuu wallahi anigu ma garanayo labadiina nin sharaf badan ninka nin dil loo haystay yiri ana halkiisa galaya iyo ninka isagoo baxsaday oo ka in cidla ajooga dil u soo noqday oo isli badbaadi ninkii ku damiintay ma garanayo buu labada nin sharaf badan laakiin anna noqon maayo ka saddexaad ee ugu liitay maantaaba iigu dambaysay buu gabi ahaanba nin damboon dilo qiriyeenka halkiiba horta lagu joojiyay Nucmaan bin al-Mundir ninkaas oo ahaa qiriyeen buu lahaan jiray maalinta boqolka halaad oo bixiyay iyo maalinta uu ninka koobaad dilo labada maalmoodba waa lahaan jiray hatta asxaabtiisii gaarka ahayd buu dilay